الله الرحمن الرحيم magacayga waa Dr. Maxamed Aadan Dr. Marwan ahna dhakhtarka cudurrada carruurta iyo daryeelkooda maadaama ay nagu soo fooleeda bisha barakeysan ee Ramadaanka su'aal waxaa jirta marar badan la isweydiiyo oo hooyada nuujinay cunuga ma soomi kartaa way soomi kartaa wax dhibana ma laha kaliya waxay ku xiran tahay awoodda hooyada iyo cunuga daada uu jiro inta badan ciyaalka ka yar 4 bilood hooyooyinka haysta ama 3 bilood waxa fiican in naaska kaliya oo la siiyo oo aan caano kale la siinin in hooyada bilahaas aysa soomin laakiin awoodeeda haday leedahay hooyada waa soomi kartaa wax isku xiran oo la leeyahay qarasow ka nuuga ama cunugiya caanihiya dhibaato soo gaaray ma jiraan soonku wuxuu keeni karaa inay yaraadaan caanihii soo saaritaankooda xaddiga caanihii inay amountiga yaraatay keeni karaa maahane ma keeni karo soonku dhibaato kale caanaha gudaheeda uma keeni karo sidee marka loo kordhi karaa caanaha markii maadaama hooyada ay sooman tahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye kow hooyada inay qaadato biyo cabitaankeeda inay badiso maalintii waxa laga rabaa 2 ilaa 3 litir markii ay afurto inay ilaa suxuurtii inay qaadato 2 ilaa 3 litir oo biyo ah waxa kale waxyaabaha kale oo muhiimka ah oo laga rabo waxa waaye inay qaadato maraq ay qaadato kale porridge-ka ay qaadato cuntooyinkan borotiinka fiican leh sida ukunta digirta hilibka waxaas xoog fiican la saarayo qudaarta waxa kale muhiim ay tahay oo caanaha kordhi kara hooyadii waxay tahay waxyaabaha la yiraahdo fenugreek ama xulbada oo kale xulbada waxa la ogaaday in caanaha kordhiso oo ay caana wax soo saarka iyo quality-ga caanaha ay kordhinay waxyaabaha kale caanaha kordhi kala waxa kamid ah timirta oo kale kamid ah sisinta kamid ah marka hadii hooyadii ay qaadato waxyaabahan kordhi kara caanihii waxay saacidi kartaa in caanihii soo saaritaankoodii ay badnaadaan maxaa kale waxyaabaha kale oo kamid ah muhiimka ay tahay habeenkii oo kale in cunuga caanaha marar tira badan la nuujiyo soo nuujinta caanahaas waxay keenay in hormoonkii prolactin-ka la yiraahdo wax soo saaritaankii habeenkii la soo saaro inuu bato caana soo saaritaanka uu badnaana sidee ku ogaa karaa cunugayga caanahan aan siina inay ku filayin in kale haddii aad ku aragto cunugaada xafaayadii maalintii in ka yar laga bedela 3 ilaa 4 mar haddii aad ka bedesho ama 3 mar wax ka yar aad ka bedesho waxay sheegay calaamad sheegay cunugaada inuu dehydrated fuuqbax yahay aysa caanaha ku filnayn naaska kaligood haddii cunugii aad aragto ooyin tira badan oo leeyahay markii naaska la siiyo oo si wali dhargeyna wali caanaha inuu isku filnayn sheegay haddii cunugii aad ku aragto cunugii laya cunugii iska jiifo cunugii active aan ahayn aykan waxay sheegayaan ama cunugii uusa miisaankiisi oo isdhimaa waxay sheegayaan inuu caanaha naaska isku filnayn markaas oo kale waxa la ogolaa karaa in hooyadii ay u bilaabi karto caanaha gasaca yararka carruurta loogu talagalay ee maalintii 1 ama 2 mar intay soomanta ay sii kartaa ama haddii caanaha hooyadii ay ku filnayn cunugana uma baana in gasaca la siiyo